بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu dhacday arin aad u cajiib ah oo runtii aan kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland qaasatan kuwa Hargeysa saldhigga qurac dheer maalintii Jimcihii ayaan anigoo inaan dhaawac sida oo raba dhaawac muujin si aan referto uga qaado saldhiggaas oo ay arintaasi qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarku igu yiraahdeen gaariga baarkinka adhig halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yiraahdeen dhig baan dhigay inaan yar baa igu soo dhaqaaqay oo ciidanka kamid oo ku gaarka ku jiraya ku kala meesha fadhiyeen marka askarigii igu soo dhaqaaqay baa igu yiri waad kibirsantay taadeer waan ku aqaanaayo tabatana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga imaad ran halka ka dhaqaajiyo halka dhig arkina maan dhig maxaad kala darta miya kibraniyad baatay deegar darra cadaan oo aan miyana kula hayn haystaagin miyana warwal qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga baarinkiisa ayna halkan loo istaagin loo ma istaagin ka tal hay halka ugu tiriimka istaag ma istaag ha maxaa waad edab darantay war hay caayna diga edab daranay ruuxan day xijaabkii oo soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yidhi war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay uu isagina day igu dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada bugeedana ku yidhi noo kaxee gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay oo laba askari oo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeedhay oo markaa anigu gabadhii uun is qabsanay bay saddexdii askari bad dusha iga dileen hooyo gaadhigii iga dambeysay baa iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna seeleedi miyaad dilaysaan tiri iyadina waa la igu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteeda ku dilay hooyadii way xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keen anagii halkii baan lagu laayay waliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii ciidii yihiin ayaa jiidniinkiina lagu galiyay gudaha markiina la galiyay gudaha hore markiina la galiyay ayaa waliba naloogu daray in maxaan ku dhahday oo biga dhexdiisana lagu garaaco anagu dawarka maanan hayna nin baa markaa lahaa war ka daayay taliyaha saldhiggu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyay ka daaya ninkan la ka daaya la maqli waayay lix askari iyo gabadhii ay u yeedheen toddobadii baa na jilciyay aniyoo idayno la jiidayo oo marina halka xijaabadana xidhnaana laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la geliyay oo biga markii la geliyay feerjirbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaa inta waxa noo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxa noo dheeray inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyada gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imka waxa lagu leeyahay dhakhtarka alxayaat socodkan gurigeyga timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxay qabto anakii markii meeshii laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonkii dhulka ga dhacayna intii dhaawac ahaydeen wadnii lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xidhay maqsinbaan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaa ayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meeshii ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timid oo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlay telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaaco waxaan ku waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaa dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uula maadaama jananka Jabuuti ku maqan yahay waxa la ii sheegay in la yiraahdo Cabdi Xasan Qarbash inuu yahay kusimaha jananka
inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo ku sameeyey jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey inta inantii meesha taagnayd baan taga soo dira waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa ooda garays la yidhaahdo waan xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaan u soconayna waxay ahayd inaanu gabadha muujin u qaadno wixiiba laakiin waxa ka soo soo martay gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa uu ogyahay oo gacan ka siman xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shakhsi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxaa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo laidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga muse xasan kaahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabnana la eegin oo aan nabarrada iyadaa aa arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jirhka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujinta iyadana aanu hablaha dhakhaatiirta atusnay ay ku caddahay ayaa naloo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqoo quru qabtay waxaanu qabnina lama weydiin si ay wax u dhaceenna lama weydiin halka shaqee qudhahayda la qabtay waxaa idin la ogaada sidaan ku helay telefoonka siday gabadhan telefoon ku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku yidhi taliye maadaama anagu ciidankan islaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha dee cabashayinaan dad dhaawaca wax laga siiyo u keennay waxaanu anaa la xidhiidhay janankii markaan weyne janan ku-xigeenkii baan helay adigana sababta iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kale oo aan ishkateeyey iyo cidaan meel u marina ma jirto nimankanaana jaray taliyahoodina waa kana uu taagnaa oo ka daayay buu lahaa isagaana amar diiddo ku sameeyeyna waa kana weydii waxaan ku yidhi telefoonkaygii unbaa prioritiga la siiyey annagii dhammayna dhaawac ahayn iyo hooyadaydii meesha taallay iyo annagii hadlaynay iyo anigii soo cawday iyo anigii u xidhnaa nimankii la dilay na dilay laftoodii midna wax ka soo qaadna laguma samaynin telefoonkiibuu muhiimadda siiyey taliyii oo naga baxay subaxii markuu aagu bariyey intii uu inankii yaraaye gaadhka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntona loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku idhahdaayey qof noo soo galo oo sidan wuxu qabnana la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu bariyey dadkii isku wada yimaadeen faamiligii iyo maxaa la yidhahdaayey dee niman kaloo aanu la hadhadalay oo iyaguna ciidan ah waxaa kaloo noo yimid ururka soolja iyo madaxda telefishinka horyaal iyo gudoomiyaha ururka soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha soolja sakariya iyo madaxda telefishinka horyaalo markii aan anigu ka tirsanaa markay noo yimaadeen ee ay maxaan ku idhahdaa inay yidhaahdeen waan u gelaynaana inanka yara gaadhkii xitaa inta liya qaybeedka loogu dhiibo telefoonka wuu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan noo heshay gardarre garab og oo waxaan qabnay baan cidi eegin telefoonka iyagii annagii muwaadiniinta ahayna ee soo cabanay ee islahayn dee madax meel ka tarita ma jirto janankii baad la hadashay uu maxaan ku dhahdaa telefoonkii naga qiimo badnaaday oon sidee wuxu qabtaa noola odhan oon rifeertana la siinin subaxii baan ku darirnay in rifeertana la siiyo oon idhi annaguna waan dhaawacana rifeertahana la siiyo taliyininkii oo biig maxaan ku dhahday ku yidhi rifeertooyinsii nabaradana habla askarana loo soo diroona eegay sidii baa rifeertooyinkiina lagu siiyey si dhakhtarina cidinamay geeninana looma ogolaanin taliye ku-xigeenkii ciidanku ee markaa saldhigga joogay ee arkayay inay ka daaya lahaa ka daaya wuxuu sameeyey si dembigeegii loo dambebeso in 3 askari oo ciidanka ka mid ah rifeerta la siiyo waa anigii hooyaday oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dembigeega loo dambebeso ciidankii baa rifeerto in la siiyo dhakhtarkii loo diro waxay qabaana aa soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa
markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kana aan anagu deetana maadaama hooyadii saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabiinan maadaama kiniinaan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaadhkii joogo talakiciyinku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yiraahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyadii saldhigii ku dhex matagaysa waxaan sidhiyaad seersani saldhiga anigu haday aniga ahaan leed kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii xanuunsan oo lix ishaan dhakhtar ka soo sokoynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaadhigaba noo saaran yihiin in maxaan ku dhahdaaye inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo geliyo waxaan sidhiyaad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas imaniyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah ma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maartay hooyada ila tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaan kadinka ka baxno ayaan la ku qasbay inaan qorno nootaayo anaku dambi geystayaal nahay dib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waana akhriyay waxaan ku dhimaa anaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada ugu dhufateen idin tuso masaas ay ga rabtaan miidan hablahan jirkayga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin ma anaga dhib